madaxweynuhu meeshaan dhibaatooyinka ka jiro dhibaatooyin muddo badan is soo dul saarnaa waaye wadankii wanaagiisa iyo beerihiisa iyo sharaftiisa iyo dawladnimadiina meeshan ay taala say u shaqeysana waa la leeyahay imaashaad aad aan u faraxsanahay annaga dadkeega maamulkaaga waxaan soo qabna hoos aan u dhaqan doonaa haddii aan helno dawladda dhexe wixii ku aadanaa ay qabato annagana wixii maamul ahaan nagu aadan inaan qabano dawladda dhexena ay nagula xisaabtantaan diyaar u nahay madaxweyne markaan hadalkiina dhageystay saddex arrimood yaa ii soo baxday waxaa ii soo baxday dib u heshiisiin in loo baahan yahay waxaa ii soo baxday in dib u dhis loo baahan yahay magaaladan tan saddexaadna dib u xoreen in loo baahan yahay saddexdaasna aasaas waxaa u ah cadaaladda maxaa yeelay cadaaladda adaa ku nool iyada kuuma noolaa meel aan cadaalad lahayna ilaahay ma karaamayn ilaahayna waa u carooday waana waxyaabaha hadda aan arkeenno oo aan ka hadlayno waxaan ka hadlayno inta badan dhibkana haysta abaaraha iyo colaadaha aasaas waxa u ah cadaaladdii aan ka tagnay marka cadaalad haddaan ka tagnay saddexdaas aas sheegteen lama wada heli karo waa dhab suu sheegay saaxiibkay xildhibaan dalxa magaaladan waa ku soo koray waa runtiis waa imaan jiray keligeyna maahee soomaali oo dhan yaa imaan jirtay magaaladan magaalo fiican oo soomaali u dhexaysa oo daris wanaag leh oo dad fiican ay joogaan iyay ahayd haddana waa la baadigoobi karaa waana la heli karaa maxaa yeele dadkeedii idinkaa ah dawladdaani waxay ballan qaaday inay ka shaqaynayso dib u heshiisiin dib u heshiisiintana magaaladaani ka bilaabaysaa hadduu ilaahay yidhaahdo meeshii waxyaaliina wax badan oo la qaata laga helaa dalka gobolkan khayr badanaa yaallo marka dhibka gaarin waa ka xanuun badan yahay gobollada kale meel aan waxbaba oolin oo nin ushiisa garabka u saaranto hal geela daba joogaa bas ay taallo maxaa laga qaadanaa bakaar laga qoto male geed cambaahoo laga muxuu ah bilqaysta male maxaan ku idhahdaa yaanyo muxuu ah isbaaro loo dhigto canshuur laga qaata male maxaan ku idhahdaa sikey maxaan ku idhahdaa qudaar daldalayso iyo xaji qabsi kor bar isu socdo male maxaa laga qaadanaa ملك الموت قولي فارغ محوك الدلها واي قولي دفك الجيران وملك الموت وحكي الدلها قولي او حبك الجيران محوك الدلها ماشي انا هرتا دبك حنونك زائدك ويا لا واسيداس ورم وقر ويا لا لكن ساسا كان بيو ميل قدني سوي مادينة ماشي دقان كان قبل كان وكم دي هاي قبل لذا اما الدقان ماذا oo biyi meeshii godnay isugu yimaadeen ah oo la soo wada doonto biyo la soo biyo roob ugu doo meel la buur waay meel la dalcad waay meel la muxuu ahaa waxa ka samaysanto wartaas biyaha la soo wada aada waa maqlaysaan wiilashayda laga bilaabo maanta hadduu ilaahay yiraahdo qofkii lagu arko isbaaro wiilashayda ma aha waxaan u soo kaxaystay gudoomiyaha maxkamadda aawi ميدان يوصل كحيس وقاعد طريق وقال ويلا شيء ما نكان أتاجن كاش محكور عشان الله كي أتاجن نشي سوق والله أنا واكنا أو بوليس دراساي أو سندروشي ورجعوي هذا أركان إلا عد إذا كأرو صنايا والله ولا دقالينا جرموتيين أنا جا مشاهر في صنعنا عيد المضيان بمغلسان نكي واحد كبدا الرادية لك أنا أتاجل يرو أتاجل ما قلت تيرا أنا سوقايا محايا لقادو طريق دين كينا ديدي أنا قلنا ما أقلين بمغلسان jidka ka baxay halkan oo ilaa baydhabo tagaya bariyahan dhammaan ka shaqeynay nin ciidan bees qaba oo jid istaagaya oo isbaaro dhiganaya ma jiraayo isna insha Allah mushaharadooda annaga meel saarayna qofkii dadka dhiba marka waa cadow Soomaaliyeed waa cadow islaam weeye dawladdaani dawlad xoog ku timid ma waa dawlad shacab rabitaan shacab ku timid weeye awoodan idinka askare annagu ma lihin
annagu waxaan idinnahay adeegi ma maqlaysaan waan idin adeegnaa kaliya waxaan idin adeegnaana waa 4 sano oo maamul walba loogu talagalay inuu joogo waa dimuqraadiyad hadduu shaqo fiican qabtana waa joogi hadduu shaqo xun qabtana idinkaa bixinayo